Paul Merson haddii Arsenal ay garaacdo Chelsea waxaa la xaqiijin doonaa kooxda ku guuleysan doonta horyaalka Premier League. Halyigii hore ee Arsenal Paul Merson ayaa sheegay in tartanka Premier League uu soo afjarmi doono haddii Gunners ay hadda garaacdo Chelsea. Arsenal ayaa kulanka London Derby soo galaysa iyadoo 6 dhibcood ka sareysa Blues, isla markaana si talaba guul oo waaweyn oo ay ka gaareen Tottenham Hotspur iyo Bayern Munich. Haddii Arsenal ay guul ku gaarto Stamford Bridge, waxay farqiga ka dhigi doonaan 9 dhibcood oo nadiif ah iyagoo sii dheereysan doona hoggaanka horyaalka. Merson ayaa u sheegay Sky Sports, tani waa Super Sunday, Chelsea vs Arsenal waa ciyaar aad u weyn. Haddii Arsenal ay badiso kulankan, waxaan dhihi lahaa horyaalka nabadgelyo, waayo waxay u sii dhawaanayaan inay ku guuleystaan horyaalka. Lama qaban doono waxayna burburin doonaan koox walba. Dhinaca kale, Declan Rice oo fariin adag u diray Moses Caicedo koox kulanka Chelsea iyo Arsenal. Xidiga qadka dhexe ee Arsenal Declan Rice ayaa fariin u muuqata digniin u diray xidiga Chelsea Moses Caicedo ka hor kulanka adag ee Premier League hadda ka dhici doona Stamford Bridge. Rice oo hadlay kadib guushii 3-1 ee Arsenal ka gaartay Bayern Munich habeenkii Arbacada ayaa sheegay inuu si buuxda ugu diyaar garoobayo dagaalka qadka dhexe ee uu la geli doono Caicedo. Xidiga reer England ee 26 jirka wuxuu sidoo kale shaaciyay inuu u codeeyay Caicedo inuu ka mid noqdo BFA Team of the Year. Rice wuxuu u sheegay CBS Sports, Caicedo ayaan u doortay BFA Team of the Year. Dagaal xiiso leh ayuu noqon doonaa aniga iyo Caicedo. waxaan ahaan doonaa mid diyaar u ah dagaalkaas. Waxaan u hayaa Moses ixtiraam weyn. Waxa isaga la ila barbar dhigaa mar walba, laakiin boosaska ayaan ku kala duwannahay. Fiid wanaagsan saaxiibayaal, warbixintaana waxay qayb ka tahay barnaamijkeennii bandhiga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka la soo gaartaa, ilaamin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.